Maanta waa maalin kale iyo muuqaal cusub. Waxaan baranaynaa sida business card loo sameeyo. Si aad business card u samaysatid ama aad qof ugu samaysid, waxaad u baahan tahay inaad barato graphic design. haddii aadan graphic design aadan wax fikrad ah ama idea aadan ka haysan, waxaan kaaga diyaariyay mowduuc, waxaana kuu soo dhigi doonaa descriptionka wax kasto isagoo faahfaahsan, applicationada kaa caawin kara, qaababka aad u samaynaysid, linkiyada aad u baahan tahay, Everything meeshaas ayaan kuu dhigay. Waxaan rajeynaa insha Allah linkiga aad raaci doonto descriptionka yaallo, kadibna aad soo akhri doonto, markaasna graphic design aad wax kasoo fahmi doonto. Haddaba business card inaad samaysid ama graphic design inaad samaysid waxay kaa saacidaysaa ama ay faa'iidada kugu jirto waxay tahay berri haddii aad qof khatar ah ku naqatid ama yacni qof professional ah ku naqatid, markaas waad ku shaqaysan doontaa, waa skillskaaga ka mid noqon doonaan. waxaad noogu shaqaysan doontaa platformyada kala duwan sida website-yada Fiverr iyo Upwork iyo kuwo kaloo inta lagu soo koobi karin oo aad u fara badan. Haddii aan hadalka kuu soo koobo, waxaan soo furanaynaa applicationkeena ama applicationka ugu fiican ee markaa Photoshop bedelay ee markaas wax walba inaad ku samayso si casriyeysan ka caawin kara. Applicationka haddii uu kugu jirin, Play Store-ka kala soo deg. Sidoo kale waxaa jiro Canva Pro waxa la dhahayo Canva Pro waxa la dhahayo ayaa jira, kaasoo markaas haddii aad kan straight aad usoo degsato oosan markaas waxyaalaha qaar aysan kuu shaqeyn doonin. Isagana Canva Pro-gaas si aad ula soo degto, linkiga waxaan ku dhigi doonaa descriptionka insha Allah. Business card-na adiga waxba haddii aad xataa adiga aadan u baahnayn, waxay hadhow kaa saacidi doontaa yacni inaad ku shaqaysatid wax 10 daqiiqo iska daayay 5 minutes aad ku samayn kartaa. Markaasna waxaad laga yaabaa inaa halkii business card ama shantii business card aad ku samaysid lacag dhan $10 $15 adoo gurigaaga joogo weliba. Haddaba saa ujeediin meesha oo ugu sareyso waxaad ku qoreysaa marketing managerka magaciisa qofkaas oo kusoo sheegay, hoosna nambarada qofka laga heli karaad ku qoreysaa. meeshaana emailka ama meesha laga heli karo waaye, intana waa adresska waaye, qaybtana waa kambaniga ama qofka meesha oo ka shaqeeyo ama shirkadda oo ka shaqeeyo loogadeeda uu kusoo diro, meeshaas ay gelinaysaa, hoosna magaciisa ay gelinaysaa. best company-na waa yacni xayeysiin waaye, wax hadda saas u weyn ma ahan. Tusaale haddii aan sameyno magaceena ayaan ku qoraynaa meeshaas, waxaan ku qoraynaa Dalmarti. meeshaan Dalmarti ayaan ku qornay. haddaba sidoo kale waan iska daynaynaa farta xataa ma bedeleyno because Canva hore muuqaalka hore haddii aad soo daawatay Canva waa ka dhadhacsan yahay ama waad fahansantahay. meeshaan waxaa ku qoraynaa number iskaga qoraynaa, meeshaan labada waa iska tiraynaa, hal xabla iskaga qoraynaa naga badan 25 22 waa furaha Soomaaliga, 6 1 5 4 3 21 67 kala iska geli. qofka markaas tusaale qofka Soomaaliya ma joogo, markaas wadanka uu joogo numberka uu kusoo dirsaday aad gelinaysaa. sidoo kale intan email aad iska gelinaysaa, email tusaale waxaad iska gelinaynaa oo kale kan oo kale aad iska gelinaynaa, waa ka baxaysaa. meeshaan oo kalena address ba iska gelinaysaa, qofka asiga kusoo qoray wuxuu kusoo qoran ba gelinaysaa. meeshaan hadda waxaa gelinaysaa oo kale Banaadir 2547 ama qofka wuxuu kusoo diray markaas. waa very easy. meeshaan waxaa gelinaysaa loogada ama kambaniga ama shirkadda sawirka khaaska ee u leedahay, because kambani kasta wuxuu leeyahay loogo caan oo ku yahay oo lagu yaqaano. loogada qofka hadduu kusoo diro meeshaas ay gelinaysaa, kambani loogo ay ku qoran tahay, hoosna waa best company xayeysiin waaye. hadda anaga ma taabanan because wax loogo ah nooma diyaarsano. sidaa markay ay tahay waxaa laga yaabaa kuwan iska bedeshid oo kale ama u baatin iska bedeshid. hadda gaduudkan ama kan oo kale haddii aad rabto inaad bedesho, color meesha ku qoranta ayaa taabanaysaa, kadib balaskan ayaa taabanaysaa. balaskan markaad taabato, haddii aad doonaysa inaad sii bedesho waa kaasaa meesha ayaa bedelaysaa kartaa. marka designka iyo nashqada adoon baa iskale, waxaa doontaad ku samayn kartaa. inaa fahantiin ayaan rajeynaa insha Allah. waxaan waa wax simple ah oo aad iyo aad u fudud.